maanta oo bishu ay tahay 15 maalin khamiis ah shirkayga jaraa'id waxaan rabaa inaan bal dhowr qodob oo aan labana dadka ku xusuusinayo qaarna aan rabo in aan biyaaniyo dhowrka qodob waxaan ugu horeysiinayaa bal marka hore madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi inaan aad iyo aad ugu hambaliyeeyo habka degan ee hadda dhowrkii bilood uu joogay diilada hadday tahay nabadgelyo iyo hadday tahay horumar dhaqaale iyo hadday tahay dadku inay bal u diiloodaan in dhulkiina ay wax ka qabsadaan dhaqaalahoodiina uu sal yeesho inaan hambaliyeeyo waxaana leeyahay Soomaalidu waxay tiraahdaa far kaliya fool ma dhaqdee aan taageero diilada madaxweyne taladiisu gacanta ugu wada jirto madaxweyne wuxuu kugula hadlay iyo hadalkiisu ay cad yihiin madaxweyne isku kalsoon madaxweyne aan baasaboor ajnabiya lahayn akoonada dibadda aanay ugu jirin waxaan leeyahay intaas oo sifooyin wanaagsan marka waxaan leeyahay in isagana waxaan leenahay Allah ku fududeeyo hawlaha waxaan leeyahay in la taageero oo sida farkeedii Soomaaliyeed farkeedii fool ma dhaqdee hawlaha la isma bartaago qodobka labaad arinta ka socota tukaraq hadalkeedu uu soo noqday tukaraq ay horta maxaa tahay tukaraq waa deegaanka Laascaanood degmada Laascaanood ee gobolka Sool ee jamhuuriyadda Soomaaliland dadka deegaanka jooga isma hayaan dadka deegaanka jooga isma hayaan ciladu maxay tahay daba ku wareegsan ciladu ku wareegsan waxay tahay waa hunguri iyo damac iyo dhul fidsi ka imaanaya xagga Puntland waxaan leeyahay reer Puntland dhulka waynu kala leenahay oo maamulkeenu kala leenahay oo dhaqankeenu ku kala duwanahay xildhibaan anigu deegaanka laga soo doortay baanahay oo deegaanka dega fitno iyo xumaan intii hore hayno ahaato tiina ay cusleysay duruufaha ay ku wareegsan baa idin cusleeyay duruufo kale ha qaadanina midna uu hangal taagnina in la idin kala gorgortamo madaxweynaha Muuse Biixi baan idin kala gorgortami karin dawladda kale aan idin kala gorgortami karin dhulka iyo dadkaas waa dhul sharci leh dad ilaashanayo dal yaqaan leh waxaan leeyahay arinta ha ku kalsoomina hadeerna fadqalada iyo propagandaha iyo waxa aad dadka iyo nacaybka aad dadka isu gelinaysaa iska daayay taana intaas ku koobaya Puntland waxaan leeyahay dantiina idin ka badan ku filaantiina dadka deegaanka ka soo jeeda ee garaadada ah ee odayaashayada ah ee meesha jooga horena waa idin niri hadeerna waan idin leenahay dhulkiina iyo dadkiina kala waad ogtihiin nabad baa meesha ka jirta balaayo kama jirto horumar baa ka jirta maanta meesha loo jeedo tukaraq oo gabal madow ahayd hadeerba 4 mashruuc baa laga sameeyaa awal la waad ogeydeeno meel ceel buu ahaa xooluhu ka cabaan hadeerna magaalo weyn noqonaysa insha Allah hadii la yiraahdo waxaan leeyahay dhulkiina uu kala oo meesha am gareeshi baa la geyn doonaa dadka sharci baa loo geyn weydiin doonaa inta baasaboor la idin weydiin iyo fiisayaan dhulkiina uu kala qolada intaas aan leeyahay waxaan leeyahay arintaas khilaafka dhulmaanta hadda waa iyo khilaafka deegaankaas khilaafka dhulmaanta aanafka ku cadeeyay iyo khilaafka deegaanka khaatuma salo ahayd khaatumana waa la heshiiyay heshiiska xoogoodii waa la heshiiyay waxbaana badidooduna waa fulay wax yar baa dhiman wixii dhinaa way dhamaystirmayaan khilaaf kale oo hadeer la horiyo hor leh waxba sal yeelan maayo dawladda federaalka isteedida ka dhigi karin dhulbahanta ku heshiinayo oo meel kale aan jirinin Ali Khaliif nin deegaanka ka soo jeeda oo aqoon iyo da iyo waayo aragnimo iyo magac kaga horeeya ma jiro nin intuu sameeyay sameyn karaan ma jiro nin 4 sanadood 5 sanadood geed intuu seexdo qadiyad uu leeyahay meel mari kara ma jiro way adag tahay baa leeyahay isaguna dambu mooday inuu Soomaaliland la heshiiyo
dadkii iyo taladii iyo raggii uu gacanta ku hayay hadday tahay baarlamaankiisii hadday tahay raggii la shaqeynayay ismada ahaa intaba dambaa la wada mooday halkaasay fadhiisatay nin kaloo qaadi karaa ma jiro waxaa leeyahay arrintaa aynu sidaa ku taageero sidaana ku meel marino taana intaasaan leeyahay qodob kale guud ahaan dadka reer somaliland waxaan leeyahay haddaan ciidamada la taageerin oo shaqada ay qabanayaan lala qaban waxba inoo qabsami maayaan hadday nabadgelyada xagga hore tahay hadday magaalooyinka gudaheeda tahay shalay waxaan arkayay magaalada Hargeysa gudaheeda booliis iyo dhalinyaro iscadcaysanaya oo dad 2,000 oo qofi ay dul taagan yihiin haddaan inanka habeenkii dadka telefoonada ka qaadaya ama suuqa dhexdiisa tashanka abuuraya haddaan gacanta lagu wada qaban ma askari booliisa wax qabanaya hadday askarta booliisku fashilantana waa fashilina ku wada dhacaya waxa la askarta booliiskana waxa lala qabto tusaale ahaan arrinta qaadka shalay lala carcarayay qaadku inflation isaga salo ah dhowr boqol oo kun oo dollar ma habeen walba la saaraa anigu waxaan oran lahaa la joojiyo laakiin waxaad moodaa dawladdu taa may qaadinin inta tashan laga abuuro oo qaad walayaal ay qiimaheennii iyo dawladeennii iyo nidaamkeennii iyo dhaqaalaheennii ay maamulaan dadnimo maaha waxaan leeyahay arrintaa booliiska la taageero oo booliiska laba arrimood baa lagu taageero wiilashan yaryar ee 24 saac habeenkii kooxda u socda war koox kale dhalinyaro ah oo gurigiina ay boobayaan oo gabdhihiina ay boobayaan oo ganacsigiina ay wax ku sameeyaan ma jiraan warqab qabta odayaasha iyo dadka ganacsatada iyo dadka waxgaradka iyo culimadana waxaan leeyahay arrinta booliisku uu hayo waa halbowlaheennii hal taageero si xog la taageero wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh xilligan waxaa jirta in baaqiyo caalamiya oo beesha caalamka ka imaanaya oo la xiriira arrinta tukara ka taagan ay beri ugu dambeeyay soo baxayeen arrintaa waxaa ka dhashay warar hoose oo sheegaya in ciidamada la kala qaadayo oo weliba ciidamada Somaliland fariisimadoodii loogu baaqay hore ay joogeen in lagu soo celiyo arrintaas oo propaganda arrinta maamulka Puntland baa arrinta dadkooda geliyaan oo yiraahdaan dawladaan la hadalay dawladaha ciidamada dib u qaadanaya dawladu qaadi kartaana ma jirto madaxweynaha Somaliland uma qaadi karo waa dal sida loogu wada dhiibay oo xaqiisa tahay inuu xuduudiisa iyo xurmadiisa wada ilaaliyo wala laga xisaabtamay arrinta ku kacdo madaxweyne ha ku kalsoomin arrinta xaqa lagu leeyahay waa xuduudihiina aad wada ilaaliso adiguna xaqa aad leedahay inaan ku taageerno dadkii deegaanka ka soo jeeday baan nahay si fuulan ku taageerana arrinta ku kalsoomin mana jirtaan leeyahay waa dacaayad ay wadaan Puntland oo dadkooda ay ku qancinayaan salaam calaykum su'aal kale hadaan ku weydiiyo waxaad carab ku dhufatay beesha dhulbaante ee deegaanka degta oo siyaasad ahaan aad moodeen kala qaybsanaayeen sanadadii ugu dambeeyay maamulka Puntland oo kale waxaa carab ku dhufatay in wax dhulbaante ka dhexeeya aanay jirin haddii aynu si toos ugu guda galno waxaa jira in madaxweyne ku-xigeenka wasiiro xildhibaano ay maamulka Puntland ku leeyihiin beeshaas marka ma waxaad leedahay maamulka Puntland dhulbaante kama tirsana ha dhulbaante waa dad iyo dal dhulbaante fara badan waa Mareykan xildhibaanna ka ah qaar badan baa Sacuudiga ka shaqeeya qaar baa dawladda Itoobiya kiliga shanaad ku jira dad micnaheedu noqon mayso dhulbaantaha kiliga shanaad ku jira dhulbaanta waa Itoobiya dhulbaanta dad ahaan iyo dal ahaan waa Somaliland laakiin ninkii meel kale ka shaqeynaya dawladda federaalka qaar ku jiraan Kismaayo qaar ku jiraan Itoobiya qaar ku jiraan meel walba waa lagu jiraa laakiin dadkii iyo dalkii waa Somaliland madaxa jirta madax dhaqameed isla beeshaas oo iyaguna ka soo horjeeda Somaliland qadiyadeeda la diiday kuwa laftigooda maxaa kale waxaan leeyahay dadkaas waxay ka mid ahaayeen dadkii maamulka iyo talada lalaha khaatimo markii khaatimo ay heshiiska gashay baa xoogay shakiye ay yimaadeen shakiyadaasuna iyagu ma lahayn cid kala lahayd ra'yi baa laga dhaadhiciyay markii khaatimo Somaliland la gashay in khilaaf kale oo taagan oo daa'ima oo aan dadka iyaga dan ugu jirin dadka aanu mucaabilka leenahay ama dawladda aanu mucaabilka iyo wada noolaashaha aanu leenahayna aanu dujin la abuuro oo laga dhaadhiciyay mar hadduu cali galay maamulka la leedin imaanaya dawladda federaalku ixtiraafsan tahay war been iyo propaganda nacayb iyo cadaawad iyo kala fogaansho lagu abuurayo wax jira maaha. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh.